kulanti wanaagsan meel walba joogtaan halkan waa Dunia 24 ku soo dhawaada barnaamij kale oo aan uga hadlayno warar la xiriira doorashadii wadanka Turkiga ka dhacday ee guusha ku raacday madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo mar kale tan noqonaya madaxweynaha 5 sano ee soo socota wadanka Turkiga. barnaamijkan waxaan idinku soo gudbin doonaa madaxda kala duwan ee caalamka ee u soo hambalyeysay madaxweyne Erdogan iyo khudbadii ay dadweynaha hoygiisa ku soo aruuray uu jeedinayay isagu madaxweynayaal uu si gooni ah ugu mahad celiyay ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa. madaxda kala duwan ee hadda xilalka haya iyo kuwa aan xilalka haynin ee u soo hambalyeeyay waxaan ka bilaabaynaa Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu hambalyeeyay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uuna sheegay in waxyaabihii iyo abaalkii ay u qabteen aysan marnaba hilmaami karin isagoona madaxweynuhu sheegay in ay u hambalyeynayaan madaxweynaha wadanka Turkiga oo uu sheegay in marka la fiiriyo waxyaabihii intii ay dawladdiisu jirtay Soomaaliya ay la soo qabtay sidii uu soo garab istaagay iyo sida ay xaaladdu ahayd intaba qoraal uu soo saaray madaxweynaha wadanka Turkiga kaasi oo warbaahinta maxalliga wadankaasi waa wadanka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qoraalkaasi. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhankiisa isaguna qoraal uu bartiisa Twitter ka soo dhigay ugu hambalyeeyay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo uu ugu hambalyeeyay doorashada iyo guusha weyn ee uu gaaray. waxaan kaaga mahad celinayaa aan kugu hambalyeynayaa walaalkayow guusha weyn ee aad gaartay ee la xiriirta doorashada wadanka Turkiga ayuu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo uu hambalyeynayay. waxaa ka mid ah madaxweynayaasha kale ee uu soo hambalyeeyay Ilham Aliyev oo ah madaxweynaha wadanka Azerbaijan oo isagu doorashadii horeeto maalintii hore ee doorashadu ay dhacaysay 14kiiba yiri iga gudooba hambalyo hordhaca markaas ayuu soo hambalyeeyay laakiin isaguna hadda ayuu mar kale u soo hambalyeeyay madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. waxaa kale oo ka mid ah madaxweynayaasha soo hambalyeeyay amiirka wadanka Qatar oo isaguna madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan sheegay in uu ugu hambalyeynayo guusha uu gaaray iyo horumarka uu ku talaabsaday. qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ku soo qoray walaalkayga qaaliga Rajab Tayyip Erdogan waxaan ugu hambalyeynayaa guushaada kuugu hambalyeynayaa guushaada waxaana kuu rajaynayaa in aad ku guuleysato xilkaaga cusub ee ay dadweynaha wadankaasi ku doorteen ama wadankaagu. Qatar marar kala duwan ayay abaal u gashay intaynan abaalada u gelin madaxda hambalyeysay aan ku socono. ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa isaguna sidoo kaleeto waxa uu bogaadiyay guusha shaki la'aanta ah ee uu gaaray Erdogan. waxa uuna hadalkiisa yiri shaki la'aan oo ay gaareen xulufada Erdogan guul shaki la'aan oo ay gaareen xulufada Erdogan ayuu yiri madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wadanka Hungary. waxaa kale oo ka mid ah madaxweynayaasha soo hambalyeeyay madaxweynaha wadanka Uzbekistan, Kazakhstan iyo madaxweynayaal kale oo wadamada Islaamka ayaa Rajab Tayyip Erdogan u soo hambalyeeyay. dhinacyadii kala duwanaa ee la tartamayay oo uu ka mid yahay musharaxiintii mucaaradka ku ahaa ayaa iyaguna intooda badani u soo hambalyeeyay madaxweyne Erdogan. waxa ayna sheegeen inay ugu hambalyeynayaan guusha uu gaaray ee wadanka Turkiga doorashadii ka dhacday iyaga oo aad moodayso inay qiranayaan in doorashadaas iyada lagaga adkaaday. waxaad moodaa hambalyadu inay iska soo daba dhacayso madax kala duwan ra'iisul wasaarayaal wasiiro mas'uuliyiin kala duwan oo xilal kala duwan ka haya caalamka hay'ado caalami ah qaar ka mid ah madaxda qaaradda Afrika ururada qaaradda Afrika madaxda jaamacadda Carabta iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda wadamada Islaamka ayaa Erdogan u soo hambalyeeyay oo ay ka mid yihiin ururka Hamas iyo waliba ururo kale oo reer Falastiin ah. dhinacyadaasi kala duwan ee u soo hambalyeeyay marka laga reebo Erdogan isagu inta aynaan gaar hambalyadiisa dhinacyadan sababta ay ugu soo hambalyeeyeen inta badan taageero iyo garab istaag xiliyo adag uu muujiyay ayay ahayd. tusaale ahaan 2011kii Soomaaliya oo xaaladeedu adag tahay oo xilligaas cid
kusoo daqiiqantaysan jirin, cid soo fiirisaysan jirin, cid hawsheeda ka waraysaysan jirin, eeriboorka aadan cadde uu burbursan yahay, allowsaal xaaladiisu tahay, ayuu yimid madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. halkaas ayuu shacabka Soomaaliyeed kula kulmay isaga iyo xaajiyadiisa oo wada socda. wixii halkaas ka dambeeyayna gacanta ayuu ku hayaa Soomaaliya oo taageero dhinac walba leh ayuu u fidiyaa. wadanka Qatar waxa uu garab istaagay xilligii ay wadamada khaliijku ka heliyeen oo la xirxiray oo meel ay u ciirsadaan ay waayeen, isaga ayaa garab istaagay. weliba horumar ballaaran, dhaqaale badan oo xilliga ay kaga kaaftoomeen waxyaabihii kaga xirmay khaliijka ayuu xilligaas u sameeyey oo investmentigii uu ka sameeyey waa u ballaarnaa. wadanka Azerbaijan oo Ilham Aliyev uu isagu ahaa ninkii u soo hambaliyeyba Erdogan doorashadii oon dhammaanin, isagana dagaalkan adag ee ay Azerbaijan ku wada jiraan iyo xitaa xilliyo kala duwan oo la isku dayey in la dhibaateeyo Azerbaijan ayuu garab u ahaa. sidaad wada ogsoon tihiinna Azerbaijan asal ahaan dadka degani waa dad Turki ahaa. sidaasi oo ay tahay waxa uu ka mid yahay Ilham Aliyev madaxda u soo hambaliyay. wadamada kaleeto ee Kazakhstan, Kazakhstan, Uzbekistan iyo dhammaantood wadamadaas caalamka waxay ka mid yihiin iyaguna wadamada uu garabka soo siiyey Erdogan. waxaa ka mid ah dhinacyada soo hambaliyay Taliban oo iyaguna ugu hambaliyay Erdogan guusha uu gaaray. waxaadna moodaa inay hambaliyada Erdogan dadka muslimiinta iyo wadamada taagta daran inay u badan tahay, taasi oo muujinaysa inuu yahay qof diintiisana ku adag, dadka tabarta daran ah u gargaara. intaas marka aan kaga soo gudubno natiijooyinka waxyaabahaas kala duwanaa ee la xiriiray hambaliyada madaxda, isagu markii uu khudbada jeedinayay waxa uu hambaliyay madaxweynaha wadanka Azerbaijan Ilham Aliyev, madaxweynaha wadanka Kazakhstan iyo sidoo kaleeto waxa uu hambaliyay ra'iisul wasaaraha wadanka Liibiya iyo dhammaan cid kasta oo madaxweynaha wadanka Qatar, amiirka Qatar, madaxdaas oo dhan buu hambaliyay iyo cid kasta oo dhan oo nagu garab taagneed buu yiri hardanka aan ku jiray ee adka. halka waxa kaaga muuqanayso inay jiraan madax ay xiriir gooni uu ka dhaxeeyay Erdogan, iyadana waa ay muujinaysaa. Liibiya lafteedu waxa ay ugu soo hambalyanayaan halkii uu ka badbaadiyay iyo sida xaaladeedu ahayd, iyadana waad la socotaan. isku soo wada duuduube meelo kala duwan oo caalamka ah waxaa ka socda dabaaldegyada loogu weyneynayo soo bixitaanka Erdogan ee mar kale loo doortay madaxweynaha wadanka Turkiga. wadanka Turkiga gudihiisa dibadbaxyo ayaa isqabsaday caasimada wadanka iyo sidoo kale caasimada labaad iyo magaalooyinka kale. madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan dadweynaha wadanka Turkiga iyagoo calanka iyo sidoo kale calanka Turkiga iyo calanka xisbigiisa AKP ama AK Party iyagoo ku wata oo waxa weeye saa u lulaya ayay meelo kala duwan oo fagaarayaasha ah soo baxeen. waxaana inta badan wadanka Turkiga caawa ka shidan heesaha wadaniyiinta ee wadanka Turkiga. wixii warara iyo xoga ah halkan ayaan ku soo tabin doonaa, waana wadi doonaa saacadaha soo socda insha Allah wararka la xiriira wadanka Turkiga. waad mahadsantiin.